هذا جلس وحاس أود ما هين نفسه ونبر آنو كاهرين كليه هري أن بسجد الصومالية سنبل الشيء وهاكن هيستا وقبضي وكجلي هالجماعة الصومالية عبد الكريم الشيخ موسى قلب دجع ودمات كي بشي أغسطس السنة كي لبضو كنت ضرية طبنكا لوج عن جليي دولة إثيوبيا كدي مركي لقى سوقتي مقالة قال كعيو لقنا الروفيي مقالة مقدشو ساعة كدب لبست اللودي بإثيوبيا قلب دجع وحاوريه كترسن ورباهنة الجزيرة سؤال لحريرتي قلب دجع وويديي رئيس الوزراء قيره oo ay hareen fadhiyaan qaar kamid ah wasiiradiisa iyo taliyaasha ciidamada inta ra'iisul wasaaraha su'aasha aanu ka jawaabin waxa hadalka dafay taliye Sambalolshe waxa uu yiri arrinka la xiriira sarkaalka la sheegay inuu ONLF yahay ee dawladdu wareejisay sida la socotaan ba arrinkaas waa arrin oo xasaasi ah oo ay tahay waqtigeeda iyo goobteeda in looga jawaabo anigoo afwaaya dawladda waxaan jeclaa wax ka yar 100 maalmood waxa xilkii nabad sugidda laga eriyay taliye Sambalolshe waxaana dhawaan looga guuleystay xildhibaanimo oo uu tartamay markii looga guuleystay xilka xildhibaanimo kadib waxa warbaahinta qabsaday waraysiyo kala duwan oo uu bixiyay Sambalolshe kuwaas oo qaarkood uu kaga hadlay diibista Itoobiya loo dhiibay qalbi dhagax Sambalolshe talo tuuta iyo talinba waa ay ka tirmeen waxa isagoo shacab ah uu warbaahinta u sheegay in ra'iisul wasaaraha aanu ka afqaban su'aasha la xiriirta qalbi dhagax balse ay ahayd jilin ay ku heshiyeen isagii ra'iisul wasaaraha in arrinta qalbi dhagax laba si looga hadlo habeenkaas maxal qaran horta de ko shirkaas jiraad in la qabto qalad ahayd iyadoo la aaminsanay in su'aashan imaanayso xaaladdu markaas marka in la qabto qalad ahayd ko ma ku talaysan la joojiyo waa garan kartaa de moogta inaan laga yeelin Sooma absi aan waxaan qabay in little bit oo wax badaraara oo taga anagoona wax go'aan ka gaarin ba wax isku ogeedeen ma jirin waa la isku ogaa aniga saasana oo hadlo in tiraahdo aan afdubato ina hakiyo aftiin laakiin maybe two approaches ajiri karay in la yiraahdo wasaaruhu dhahat arrinkaas arrin oo intelligence waa wali nagama bisla taliyaha u deena inuu dhaho inaan ba intuu asaga uusan dhihin aan dhaho hawshan wali laga hadli karay waqtigeeda la sugo habeenkii laakiin awood isticmaashay awood waxaas waxay jilis waxaas awood ma hayn waa la ogyahay inaan oo baar gareyn karo ra'iisul wasaare iyo tiimka kala wasiirada kacsaniya adeeg farmaajoda inuu socoshan abxaan waxa la agoontimeeyay caruur qaarkood aanu qaangaarin waxa asay loo saaray hooyooyin Soomaaliyeed oo saygooda loo dhiibay dawladda Itoobiya oo cad soo jireen la ah Soomaaliya